Maalinimadii shalay ayaa magaalada Bergen waxaa laga helay meydka qof ku dhex jiro mid ka mid ah harbiyoodyada magaaladaasi ay caan ku tahay kaa oo lagu magacaabo Lungegårdsvanet, halkaas oo laga helay qof meyd ah. 2 qofood oo ka mid ah dadka shacabka ah ayaa ku wargeliyay booliiska iyo ambalaasta in uu halkani ku jiro qof meyd ah, waxaana durba goobta soo gaaray sida lagu waramayo ciidamada booliiska oo ay sidoo kale barbar socdaan gawaarida gurmadka degdega ah ee ambalaasta. Booliiska oo goobta soo gaaray ayaa xaqiijiyay in qof uu ku dhintay biyahan lagana soo saaray. Waxa uuna sheegay taliyaha howlgallada booliiska oo goobta xaadir ku ahaa Trond Johansen in goobtan ay ka heleen meydka qof dhintay kaa oo uu sheegay in aysan u suurtagelin in ay badbaadiyaan maadaama marka ay imaanayeenba uu ahaa meyd. Qofka dhintay ayay booliisku xaqiijin karin ilaa iyo hadda in uu yahay qof faldambiyeed loo geystay oo lagu dilay iyo in ay xaalad caadi ah oo ay biyuhu qaadeen. Hayeeshee waxa ay sheegeen booliiska in ay baaritaan ku sameynayaan meydka loona diray qaybta baaritaanada meydka ee Gadisk, halkaa oo baaritaan qoto dheer iyo aqoonsiga qofka uu yahay qofka geeriyooday lagu soo sameyn doono. Taliska booliiska ayaa intaa ku daray in ay hadda baaritaan ka hayaan goobta uu shilkani ka dhacay iyo biyaha laga soo saaray qofkan meydkiisa, halkaa oo ay baaritaano dheeri ah ku hayaan. Waxayna booliisku xaqiijinayaan ilaa iyo hadda in aysan haynin caddeymo muujinaya in qofkani lala beegsaday faldambiyeed lagu dilayo. Hayeeshee waxa ay sheegeen in aysan faahfaahin dheeri ah ka bixi karin kiiskan, waxayna intaa ku dareen in baaritaanku uu weli socdo. Marxaladda baaritaankuna ay tahay marxalad aanan warbixin la sii karin warbaahinta lana xaqiijin karin sida ay xaaladdu tahay. Magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa caan ku ah harabiyoodyo badan kuwa oo magaalada hareeraheeda ku yaala iyo sidoo kale bartamaha magaalada, waxaana xilliyo kala duwan iyo marar badanba dhacda in biyaha kala duwan ee harooyinkaas laga helo meydad ku dhacay, kuwa oo qaabab kala duwan ugu dhaca halkaasoo ay u suurtageli weydo in ay kasoo baxaan. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.